hay-adda Somali Relief Network of North America ayaa ka wada gudaha degmada Afgooye hooshii afurinta oo bil walba oo Ramadaana ay ka fulinaysay dad fara badan oo degan degmada Afgooye iyo tuulooyin hoos yimaada ayaa lagu afurinayaa gudaha degmada waxaana kaleento sanadkan u sii dheer dad ka soo barakacay deegaanada Janaale iyo Walaweyn kuwaas oo ah kuwa ku nool degmada tan Afgooye waxaana hay-adda ay siisaa maalin walba bariis iyo waliba cunto kaleento oo ay ku afuraan qaar kamida bulshadii ka qayb qaadanaysay afurinta isla markaana halka wax lagu siinayay ayaa u mahadceliyay madaxda sare ee hay'adda ayagoo sheegay in muddo bilowga Ramadaan ilaa haatan ay qaadanayaan afurka ay bixiso hay'adani soo gaartay waa u mahadcelinaynaa walaalkeena adiga jeerba iyo afurka meestaran iyo madax maxaa waay wax ku soo gaaray marka bariis hilib cabitaan hilib moos qarad ay marka ma hal maalin kaliya ma la siiyaa maya soonkiisa hadiyo jeer oo hadeertan soonkan ku jirnaa hawsha waa socotaa Soomaa waa socotaa soonkiisa marka maxaa leedahay marka maamulka kuwa inta ka shaqeynay iyo kuwa soo dhiibtay waa u mahadcelinaynaa hadiyo jeer bariis kayna hilib kayna cabitaan kayna qarahayna timirtayna moos kayna alxamdulillah alxamdulillah afurkayna diya okay marka ma hal maalin quraa waxaana qaadatiin maya haye maalin kasta oo soonka inta lagu gudo jiro ay inta soo baxsatay maamulka kor iyo kuwa hoos maxaa leedahay jazakallahu khair wa ma bismillahir rahmanir rahim هنا محد ورتكم على إسكالة الله سبحانه وتعالى مد كلامنا معمولها وسجوجا بش رمضان ورم صدق رمضان بريس هنيب عبتان موز تمر فرق صدق رمضان بش رمضان هذا محمد عيسى هذا سأله إسكالة هذا عيسى وشوك معمولياتها مهدعلينا وحان أذين مهدعلينا نو مهدعلينا محمد عربي يقوس كيسة oo maanta afur wanaagsan iimaan walba noo suubinay hilibka noo qalay bariis noo kor saari cabitaan noo suubi maxaan ku sheegay moos noo suubi timir adduunyo wax walba soon kastaba oo nagu soo hagaajiyay aan u mahadcelinaynaa intii noo keentay intii fog nasiis imaamulaha kor aadan ciise maxamed ciise aan u mahadcelinaynaa madaxa hay'adda degmada tan Afgooye Ibrahim Carab ayaa waxa uu ka waramayaa bixitaanka afurkan ay bixinayaan iyo halka ka timaado asigoona u mahadceliyay madaxda sare ee hay'adda Somali Relief maamulaha hay'adda aad Maxamed Ciise ayaan u mahadcelinaynaa oo deeqdan oo bil waliba oo Ramadaan yani dadka ku nool gobolka Shabeellaha Hoose aad iyo aad ay ugu mahadcelinayaan ayuu bishan ay ku soo toosay dad barakacayaal ah ee meelo kala duwan ay ka yimaadeen horay waxa ku tiirsanay deegaanka iyo wixii ku hareeraysan maanta waxa lagu sii dheer dad Janaale ka yimaadi dad ka yimaadi Walaweyn daafeed ka yimaadi marka insha Allah ta'ala waxaan leenahay jazakumullahu khayr isma lahayn bishaan maartii waa la qabanayaa hawshaani hadana Ilaahay fadligiisa ayay ku qabsoontay sidoo kale deeqda waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa maanta 7 neef oo loo tabarucay walaalkeena Maxamed Xarbi iyo qoyskiisii oo wanaagsanaa waxaan leenahay jazakumullahu khayran howlahan oo joogtada ah mar waliba oo bil waliba ah sida munaasabooyinka ciidaha maaragtay bisha Ramadaan iyo markuu dib u jiro oo hay'adda mar waliba ay garab taagan tahay arrimo oo markaas lagu baahdo oo degdeg ah insha Allah ta'ala aad iyo aad ayaan u mahadcelinaynaa waxaan leenahay jazakumullahu khayran jazaa sahar oo aragteen maamulooyinka qoyska ah raashinka meesha ku yaal ma aragteen waa raashin waa qoys ku filan waaye marka qofna ka badan
laba qofna ka badan waa maaragtay qoys dhan raashinkiisa uu qaadan karo waay insha allahu tacaala waxaan leenahay aad iyo aad u mahadsan tihiin maamulka sare aad maxamed ciise iyo asxaabtiisa iyo howlaha la shaqeynaya جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على رسول الله وبعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أولا نحمد الله سبحانه وتعالى ثم نشكر الأخ محمد حرب وعائلته الكريمة الذي تبرع بهذه اللحوم أو بهذه الخروف ونشكر الله سبحانه وتعالى ثم نشكر الأخ محمد حرب وعائلته الكريمة ونقول لكم جزاكم الله خير فنسأل الله تعالى أن يجزي مثوبتكم وأن يبدل الله تبرعاتكم أجرا كبيرا كما قال سبحانه وتعالى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وهذه الإفطار مستمر من بداية شهر رمضان إلى نهايته ونسأل الله تعالى أن يديم بهذه النعمة الكبيرة ثم نشكر إخواننا الذين موجودون في كندا ونقول لكم جزاكم الله خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. aydan bilowgeedii afur bixinta ayaa waxa ay ku beegmaysaa sanadkan sanadkii sagaalaad ay bixiso iyadoona 2011 ay ka bilowday gudaha degmada Afgooye bixinta afurka iyadoona dad fara badan ay ka faa'iideysteen inta howshaasi ay socotay sanadkan hadda aan ku jirno ayaa waxa uu noqonayaa sanadkii sagaalaad oo si toos ah hay'adda u qoodiso dadka aan wax haysan ee ku nool gudaha degmada Afgooye iyadoo sanadkan dad fara badan oo ka soo barakacay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose ay ka mid noqdeen dadka lagu afurinayo gudaha degmada Afgooye.